maanta ay taariikhdu tahay 19 bisha afraad sanadka 2025 waxa shirkoodii sanadlaha ahaa isugu yimi jahriyada maaqir ee ku dhaqan dalka Belgiumka waxa ayna soo saareen qodobadan hoos ku qoran bayaan ka soo baxay jahriyada maaqir ee dalka Belgiumka qodobka koowaad jahriyada maaqir ee dalka Belgiumku waxa ay joojisay dabaaldegyadii sanad guurada maaqir maadaama mandaqadii ay noqotay mid dagaal qaasatan magaalada Ceergaabo buuraleyda Calmiskaad iyo Calmadow qodobka labaad waxaan ka codsanaynaa jahriyadaha kale ee reer maaqir iyo dal joogtaba in ay ka shaqeeyaan sidii dadkii ka soo barakacay guryahooda dib loogu celin lahaa magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag qodobka labaad waxaan soo dhaweynaynaa go'aamadii ka soo baxay shirkii Ceelbu iyo kii baran ee lagaga hadlayay arrinta Ceergaabo ee gogosha uu dhigay suldaanka guud ee mandaqada Suldaan Saciid Suldaan Cabdisalaam qodobka afraad waxaan soo jeedinaynaa in aan shirar kale loo baahnayn waqtigan ee ay shaqeeyaan gudiyadii loo xil saaray in ay dhameystiraan go'aamadii shirarkii hore si aan waqti kale iyo dhaqaale kale ugu lumin shirar aan loo baahnayn qodobka shanaad waxaan ka diganaa in aanay masiirka dadka majaraha u qaban qolo siyaasiyiin sheeganaysa oo aan dadka iyo dalka midna u hayn marka kaliya ee la arkaana ay tahay xilliyada ay jirto oo ay soo dhowdahay doorashooyinku sida roob la dhaca oo kale qodobka lixaad tala soo jeedin ismadu waa inay si degdeg ah u xaliyaan khilaafka ama kala aragti duwanaanta dhexdooda ka jirta dadkana u turaan aragtidoodana mideeyaan si loo helo bulsho midaysan waxa la yiri hadii cadawgaagu bato cududaada ayaa la mideeyaa qodobka toddobaad waxaan markasta garab taaganahay ammaan iyo bogaadina u direynaa ciidamada geesiyaasha ah ee dagaalka kula jira kooxaha argagixisada ah ee Daacish iyo Al-Shabaab qodobka sideedaad dawladda Puntland waxaan ka codsanaynaa in aan la joojin dagaalka ilaa laga sifeynayo dhammaan cadawga ku jira buuraha Calmiskaad iyo Calmadow inta kadibna waa in loo soo jeestaa xuduudaha deegaanada xuduudaha qodobka sagaalaad waxaan u mahad celinaynaa isimada harti iyo guddiga la shaqeynaya ee ka qayb qaatay ama haddaba gacanta ku haya xalinta dhibaatada beelaha walaalaha ah ku dhex martay deegaanka Dureera oo ka tirsan degmada Ceergaabo ee gobolka Sanaag ugu dambeyn qodobka tobnaad waxaan sidoo kale bogaadinaynaa doorkii ay dawladda Puntland ka qaadatay daminta iyo xakamaynta shaqaqadii ka dhacday Dureera iyo sida ay uga hortageen in aan wax dambe dhicin ilaa inta la isaga imaanayo xalinta arrinkan taas oo ay hormuud ka ahaayeen madaxweynaha Puntland gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland wabillahi tawfiiq